halkaani waxaa ka dhacday dab aad u xoogan isla markaasina goobjoogayaal ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in khasaaraha uu markaasi ahaa oo keliya shidaalkiiyo sidoo kale naaftida ku jirtay goobtaasi dadka ayaa waxa ay dabdamiska u isticmaalayeen in ay ku damiyaan gacmahooda iyagoo adeegsanaya iyadoo aan waraysanay qaar ka mid ah bulshada sugan aagaasi ayaa waxay noo sheegeen bismillaah meeshaan waxaa ka dhacday masiibo weyn masiibadaasoo ilaahay nuu guuleeyey aysan wax khasaara ah oo hantiyeed maahan aysan nafeed ka dhicin ilaahay waa nuu guuleeyey wax khasaara ah hantiyeed maahan wax kalena kama dhicin dadka reer Cawdaaq baana badbaadiyey marka waxaannu leenahay reer Cawdaaq ha isku tashadeen hana isku soo gurmadeen dabku wuxuu socday muddo 2 saac ku dhow laakiin wax khasaara guryahaas maahan wax kale muu geysan oo dadku waa nabad qabaan haddana waxaa ku guulaystay dadkii reer Cawdaaq inay damiyaan haddana waa la damiyey marka waa mahadsantiin idinka maya wax dhaawaca ma jiray wax dhaawac ay dhimashaan ma soo gaarin hantidaas burburtay maahan wax kale oo soo gaarin ma jiraan annagu dadkii gurmadka ku yimi baan nahay ilaahayna waa nugu guuleeyey inaan daminno haddana waa dhammaatay hawshii dadka waxaan ku daminnay gacmaha iyaga ciidda iyadaan u adeegsannay biyaan u adeegsannay gacantannadaan jingadda iyo ku soo fujinnay iyo waxaana loo sheegay in dabdamiskii oo kale la soo kiciyey laakiin uusan soo gaari waayey laakiin annagaa gacmaha iyaga u adeegsannay waana ku guulaysanay alxamdulilah rabbil caalamiin waa ku guulaysanaa dabka Cawdaaq ka kacay inaan dibinno taasna waxa muujinaysaa reer Cawdaaq inay yihiin dad isku xiran oo hawlkar ah Cawdaaq ninkii caawi yiraahdo dad kuma noola caawa aragna dabka soo u dibinnay alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale taa dabka u dibinnay waayo inaan sheego meesha ay ka dhacday hawsha waa degmada Cawdaaq qaabta xaafadda Waaberi ka qaabtan meesha ilaahay suuqa ilaahay marka waxa weeye waxaan sheegayaa ku xiran wax dabdamiska oo gargaar ah oo magaciisinimo oo ka soo gaaray halka lama arko shacabka iyo caruuraha inta la leeg qoya garaaf iyo jingad la ordo iyo orod ku damiyay iyo tuuryo waxaan caawinaa oo caawisho noqonaysa in laga caawiyo dadka halkaan ah dabdamis ah oo markii saas oo kale xaaltooyinka noocaas dhacaan gargar oo degdeg soo gaadhay oo degdegan oo cadaalad qof sax ah oo magaciisi hayso oo dadkaas oo dhan u dhaxaysa oo waxaan kala xaaltooyinka markay dhacdo si degdeg ugu timaado xilli dambe aan ka soo دبي